Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaasha ku xiran kanaalkeena Tansheeg. Waxaan idin lahayntiis Ramadaan Kariim. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan ishaarooyinka gacmaha. Waxay noqdeen ishaarooyinka gacmuhu kuwo ka mid ah luqadda jirka, taasoo isticmaalkeed aad u soo batay maalmahan, kuwaas oo aynu u malayno qaarkood inay caadi iska yihiin isticmaalkoodu. Laakiin qaar badan oo ka mid ah ishaarooyinkaas waxay xambaarsan yihiin macnayaal qarsoon oo aadan hore ugu fikirin. Waxaanu kaga hadlaynaa mowduucan ishaarooyinka ugu caansan gacmaha ee laga isticmaalo gacmaha iyo salahaan xagga ishaaro kastaaba ka timi. Kow, calaamadda ugu faafitaanka badan caalamka waa calaamadda guusha ee V. Calaamadda loogu isticmaalka badan yahay lagu cabiro guusha iyo xorriyadda waa la isku khilaafay macnaheeda dhabta ah ee lagu fasiri karo waqtiga hadda la joogo, laakiin asalkeedu wuxuu noqonayaa dagaalkii boqolka sano ee u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska, markaasoo loo isticmaali jiray ku-shaqeyska ciidanka Ingiriiska, kuwaas oo ay soo qafaasheen ciidankii Faransiisku ka jarayna faraha farsuulka iyo farta dhexe si aanu mar dambe qori ugu qabsan askari Ingiriis ah una dilin askari Faransiis ah. Laba, calaamadda shaaka waa qaloocinta faryarada iyo farsuulka. Calaamaddan waxaa kasoo ifbaxday Hawaii, waxaana markii ugu horreysay sameeyay nin la oran jiray Herman Cagliari. Wuxuu shilku waayay saddexdiisa farood ee dhexe, wuxuuna dadka u taagi jiray markuu salaamayo labada farood ee u hadhay. Sidaas ayayna calaamadani ku faaftay, iyadoo ka turjumaysa saaxiibtinimo iyo salaan, waxaana ka bilaabatay Hawaii iyadoo markii dambe gaadhay caalamka. Saddex, calaamadda salaanta caadiga ah. Salaanta caadiga ah taasoo ku dhex faaftay shucuubta kala duwan ee caalamka asalkeeda dhabta ahi wuxuu u noqonayaa Giriigii hore, waxaana ahayd caado joogto ah oo markasta oo ay laba qof kulmaan ama kulan bulsho ballaaran isugu yimaadaan gacmaha ayay isu taagi jireen. Hadafkeeduna waxay ahayd in labada dhinac kalsooni kala helaan, taasoo micnaheedu ka turjumayay inaan wax xubnaha la isu wadan. Afar, salaanta feerka ah. Calaamadani waxay markii ugu horreysay soo ifbaxday qarnigii 19aad, kadib waxay u faaftay sidii salaanta caadiga ah iyadoo la isku soo dhaweyn jiray xilliga ciyaaraha ka hor. Shan, calaamadaha geesaha shaydaanka waa taagidda farta suulka xigta ee faryarada, inta kalena waa la jiifin. Waa calaamadaha badanka loo isticmaalo ku ciyaaridda baararka. Asal ahaan waxaa loo isticmaali jiray tacbiiridda geesaha shaydaanka, waxaana kasoo jeedaa diinta Buddhism-ka, iyadoo ay isticmaali jireen ruhbaantii diinta Buddhism-ku caynta shaydaanka, sida marka ay sheeganayeen inay qofka ka saareen xanuun iyo culays soo fuulay. Lix, salaanta high five waa isku rafashada labada calaacalood. Salaantii ugu horreysay high five waxaa laga diiwaangeliyay labada ciyaartooy ee Dusty Baker iyo Jillian Borag intii lagu guda jiray ciyaarihii baseball-ka ee dhacaya 2 Oktoobar 1970, kadib sidaas ayay ku faaftay. Toddoba, salaanta taagidda suulka. Asal ahaan calaamadan taariikhdeedu waxay u noqonaysaa Roomaadii hore intii lagu guda jiray dagaalkii Gladiator, kuwaasoo isticmaali jireen dagaalyahamiintii musaaracadu, waxaana u isticmaali jireen laga guuleystaha isagoo taagi jiray fartiisa suulka si uu naxariis uga helo guuleystaha. waad ku mahadsantahay daawashada mowduucan oo inoo mowduuca xiga insha Allah. Ramadaan Kariim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.